السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالها ugu xidhan meel kasta aan ku jiro social media-da waan idin salaamaya dhamaantiin. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiis saxiix weeye: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يعني إلهي ملائكتيسا iyo ahli samaawaat kuwii cirka joogay ha noqdeen malaa'ig ha noqdeen ilaahay wax uu abuuray oo aan garanin ha noqdeen wax kasta oo ku nool cirka wal ard bashar ha noqdeen wax kasta ha noqdeen حتى النملة في جحرها حتى قرانشدا قد كيري كل حجرته حتى الحوت حوت كو تقاني وعوي وكلونك دبالو جيدا كلونك هلك كلونك لو جيدا الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير لا يصلون على معلم الناس الخير. وانا استغفار يعني يا استغفار يعني قفك ضدك خير كبريه نصيب في عنا قف ما انت السوشيال ميديا كهضليا اما فيسبوك يوتيوب تيك توك او كلمة خير عددك وشيغي يا اخي انت قفك لي اجر. حديثكم هو حديث صحيح ويه وحلقوري النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي امامه: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. صححه الترمذي. حديث جابر حكوري النبي صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. قف كدتك خير كبره وحكستو واستغفار يا سبحان الله. والنوع عدد حتى الحيتان في البحر حتى كلونك يحوتك كل حشرة بدك وديه. حديث عجيب مسند الإمام أحمد وحير عن قبيصة بن المخارق قال: نين لده قبيصة بن المخارق وحيري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قالوا صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك محاك يعني؟ قلت وحان إري كبر سني وهو ينادي وضيب النقضي ورق عظمي لفايقا آدبي خلاص يعني آدبي لفايقا ضعيف النقضين وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به وحانو إمسياد وحي برتيد سوء إلهي وحا إيقو أنفعه وأنت أشرق له خير ذلك أنه برا أنه فائدسته. قال: يا قبيصة حكير يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر ما يلكستان سوء مرتيد أما نقح أقمر أما قيل أقمر إلا استغفر لك وكو استغفارها. سبحان الله. يعني وحانو ذا يا كنصيب في عن ما أنت قف كتشرى السوشيال ميديا الصبح يرددك سوقعي سنادسة كذي وراعدي بحي وخير تدك أفافي وددك أشياء وحش رحي وحفانسي. هذا نقطة علوم الدنيا نقطة لقى فائدته أما علوم آخرة نقطة لقى فائدته يا كنصيب في يعني واحد كتكت الحرب كتكت ما أنت بركة آيات قرآنية ترجمتيد أما حديث ترجمتيد لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنا تي سميان ضد فربدون أصحابتي أمريكي وعرب أو ده دحتة وين باكر أو كترة وصوق لحتى تيك توك waxay usoo galin waxa weeye dacwo ila Allah subhanahu wa ta'ala waxay usoo galin dacwo ila Allah lana waa arkay in tiktok lagu waashay Soomaali kaliya kuma wareerin laakiin waxa ku wareeray mujtamacaadka oo dhan yani fitan ajiiba ka dalacday ولذلك qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u doortay waa qof nasiib fiican inuu platformka social media dhex istaago oo wax fiican ka sheego. hambal leeyahay walaalaha social media ka soo baxa ee khayrka faafiya ee ducaa ila Allah ee qur'aan soo duuba ee xadiis soo duuba wallahi cid idinka fiican ma jirto waana dhaxal bari markaad dhimatid oo qabriga gashid nuur badarkaysa insha Allah nuur badarkaysa laana waxa tahay qof khayrka faafinaya oo dadka wuxuu sheegaya khayrkaagu hurdadu ka soo kacaya wuxuu hamigiisu inuu maanta oo umada fasaadiyo oo marba loo galo oo marba wax caayo oo marba heeso oo marba wax Ilaahay caridiisa keeno social media galiyo. qofkaas bari marka uu adduunka ka tago maxaa ku dhacaya? wallahi ka shaleynaya isagoo kumayaal kun oo video duubay kumayaal kun oo maaragtay waxyaalo Ilaahay caridiisa keeno duubay oo faafiyay markuu qabrigiisa ku arko waxaas oo dhan la hortuso wuxuu oran doonaa qofkaas yaa leeytari wallahi inaan waxa dhex gelin. marka nasiib fiican qofka Ilaahay uu isticmaalay ama uu isticmaalay amal khayr Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo isticmaalo oo noo istikhdaamo inaynu a'maal khayr ma wax kale aynan qaban inaynu ummadda anfacno inaynu dadka ummaddeena barno cilmi adduun iyo cilmi aakhiro oo labada daarba laga faa'iideysto insha Allah. sii shirkareeya ha ku noqoto sadaqa jaariya wadaalu ala khayr ka faa'ilihi meel kasta aad gaarsiisid qof kasta oo dhageysta khayrka waxaad ka qayb qaadatay khayrkii qaybaad ka qaadatay wadaalu ala khayri ka faa'ilihi qofkii khayr faafiyana ajarkii oo kale ayuu leeyahay. والسلام عليكم
waraxmat ullahi wabarakaatu. عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحب